xikmaddu waa aqoon waayo aragnimo iyo caqli-galnimo la isku daray si loo gaaro go'aamo ka fiirsi badan oo anfacaya qofka iyo bulshadaba. Waxaa la yiraahdaa xikmaddu waa wax kasta oo jahliga kaa ilaaliya, xumaantana kaa celiya. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi, xikmaddu baan siinaa ciddaan doono. Ruuxii xikmad la siiyeyne waxaa hubaal ah in wanaag badan la siiyey. Daawadaha sharafta leh, waxaan idinla wadaagi doonaa 200 xikmadood gebi ahaanba noloshaada u bedeli doonta mid heer sare ah. Xikmado aan idinkaga soo aruuriyey buugaag badan aan akhriyey. Muuqaalkan kadib hubaal xikmado dambe ma raadin doontid. Intaan muuqaalkeena xamaasad leh u gudagelin, waxaan kaa codsanayaa hal like iyo hal subscribe inaad saarto janaalkan una share garayso asxaabtaada. Haddana ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Xikmadda koowaad, ha u caabudin eebbe inuu wax ku siiyo, ee u caabud inuu raali kaa noqdo. Haddii uu Allah subxaanahu wa tacaala raali kaa noqdana, waxaad si durdur ah u helaysaa siismadiisa. Xikmadda labaad, qofna marka uu dhalanayay ma uu dooran midabkiisa, nasabkiisa, hantidiisa iyo cidda uu naqanayo, ee haddii aadan abuurka ixtiraamaynin, abuuraha ixtiraam. Xikmadda saddexaad, haddii aadan awoodin hadal xaq ah, ha u sacabtumin baadilka, xumaanta iyo gardarada. Xikmadda afaraad, qofka gudaha ka wasakhaysan ma suuraysto in ay jiraan dad wanaagsan. Xikmadda shanaad, haddii aadan helin ruux laabta xumaan iyo xiqdi kaaga haaya, ogow inaad tahay ruux fashilmay. Xikmadda lixaad, inaad shakhsiyaddaada ixtiraamto waxaa ka mid ah inaad ka dheeraato dadka aan qiimahaaga garanaynin. Xikmadda toddobaad, aqoonta maadiga ah guriga way inoo ifisay, balse garaadka inooma ifin. Xikmadda siddeedaad, dadka waa ay isbeddel badan yihiin, ee qiimahaaga ka dhex raadinin wejiyada dadka. Xikmadda sagaalaad, aadamuhu wuxuu aadamo ku noqdaa iska caabinta wax uu jeclaysto iyo xamalista wax uu neceb yahay. Xikmadda tobanaad, naftaadu waa markabkaaga oo haddii aad adiga fuusho waad badbaadaysaa, haddii ay iyada ku fuushana waad halaagsamaysaa. Xikmadda 11aad, guushu micnaheedu waa inaad heshaa wixii aad doonaysay, farxad micnaheeduna waa inaad jeclaataa wixii aad kasbatay. Xikmadda 12aad, ma waxaad dareemaysaa caro iyo daal? Haddii ay taas dhacdo, naftaada u dhiib shaqo aad aaminsan tahay, isugu gee dadaalkaaga dhan iyo caqligaaga, dartiisa u noolow, dartiisa diyaar u noqo inaad u geeriyootid. Sidaas baad ku helaysaa farxaddii aad filaysay inaadan heli doonin weligaa. Xikmadda 13aad, anigu waan fikirayaa oo fakirayaa sanado badan, waxaana ku fikirayaa 99 xaaladood oo niyaddeeda jebin karta, hase ahaatee waxaan guulaysan doonaa marka 100aad. Xikmadda 14aad, caqabadaha ka hor gudban guusha waa wax argagax badan, kuwaas oo kuu muuqanaya marka aad indhaha ka dadbatid yoolka aad hiigsanaysid. Xikmadda 15aad, yoolka iyo meesha aad hiigsanaysid oo adiga aad diyaarsatay waxa uu kuu saamaxayaa inaad maamushid jihada noloshaada si aad dhanka dantaada ugu weecisid. Xikmadda 16aad, ma jirto tilaabo weyn oo aad ku gaaraysid meesha aad hiigsanaysid, laakiinse hawsha waxay u baahan tahay tilaabooyin yaryar oo badan si aad u gaartid meesha aad hiigsanaysid. Xikmadda 17aad, haddeer shaqada aad wadid haddii aanay ahayn mid kuu sii dhawaysa hadafka aad hiigsanaysid, waxaa shaki la'aan ah inay kaa sii fogeyn doonto. Xikmadda 18aad, ma jirto sir lagu barto iskuulka oo asaas u ah guusha, laakiinse yoolka guusha waa tirooyin la hubsaday, howl adag oo na soo maray iyo wax ka kororsiga khaladaadka hore u soo dhacay ee lagu fashilmay. Xikmadda 19aad, ruuxii mara wadada dadka badankiisa ay marayaan ma gaaraya meel ka saraysa meeshii ay gaareen kooxdaas oo uu la jaan qaaday, laakiinse qofkii keligiisa socda wuxuu gaarayaa shaki la'aan meel aan cid isaga la mid ah gaarin. Xikmadda 20aad, wixii tagay ha tiigsan, waxa kaliya lagaa doonayo waa inaad ugu gudbiso xikmad oo ay ku dhisan tahay faa'iidana aad ka guratid, kadibna aad ugu guurtid dhabarkaaga. wax ka muhiimsan waqtiga taagan ma jiraan. Marka laga reebo wax aad qorsheynaysid inaad fashid hadda la taagan yahay, laga bilaabo hadda iyo ka dambaba waxaad noqon kartaa mid kaga duwan dadka kale oo ay ka buuxdo dad jecel iyo isfahan, una taagaya gacantiisa si uu u kaalmeeyo dadka, saadaalanaya mustaqbal fiican oo aan iska hor imaad lahayn wax kasta oo laabta ku soo dhaca, fikir kasta iyo howl kasta. Xikmadda 21aad, kuwa guulaystay waxay had iyo jeer raadiyaan fursadaha ay dadka kale ku caawin lahaayeen, laakiinse halka kuwa ay guuldarradu qoran tahay marka hore isweydiiyaan maxaan ka faa'iidayaa garabsiinta dadka kale. Xikmadda 22aad, qof kasta oo ku guulaystay nolosha oo aan la kulmay wuxuu igu yiri isla weertan waxaa nolosheeda u bedelay meel ron xilliga aan bilaabay inaan ku kalsoonaado awooddeeda iyo nafsadeyda. Xikmadda 23aad, muhiim ma aan heerka aqoonta aad ka gaartay oo baahi uma qabtid wax badan inaad taqaanid. Mar haddii aad taqaanid xilliga ay bannaan tahay inaad hadashid iyo xilliga ay habboon tahay inaad aamustid, fursadaha guushaada waa ay sii kordhayaan. Xikmadda 24aad, ha ka baqin inaad dadka ra'yi ahaan khilaaftid. Ra'yi kasta oo maanta la ogolaado wuxuu maalin maalmaha ka mid ah ahaa mid ka duwan habka taagan. Xikmadda 25aad, haddii aadan dabagelin waxa aad hiigsanaysid weligaa hanan maysid. Haddii aadan cidna wax weydiinin, jawaabtu waa maya mar kasta. Haddii aadan hore u talaabsan, adiga weligaa waxaad taagnaanaysaa meeshaada. Xikmadda 26aad, haddii aad himad dhab ah u haysid gaaritaanka guushaada, waxaad gaartay guusha barkeeda, laakiinse haddii aadan rajadaas ka dhabaynin, waxaad gaartay oo aad heshay fashilka barkiisa. Xikmadda 27aad, waqtiga ha isaga lumin rajaynta wax soo socda. Waqtiga munaasabka meesha aad taagan tahay kuguma yimaado weligiis. Isticmaal wixii aad heli kartid oo qalab ah. Mar kastoo wadada cagta saartid, waxaad heli doontaa qalab kale oo munaasib ku ah oo kaaga daran wixii aad hore u haysatay marka aad hawsha bilaabaysay. Xikmadda 28aad, shakhsiyan waxaan aaminsanahay in fikirka wanaagsan uu abuuro aragti wanaagsan oo ku wajahan nolosha, horseedi karta guul, isla markaana gacan ka geysan karta hogaaminta nolol wanaagsan, taajir ah, caafimaad iyo farxad leh.
xigmadda 29aad ku fikir guuldarooyin kasta iyo khasaare kasta ku dhaca noloshaada inay cashar ku tahay. xigmadda 30aad qofka fikirka wanaagsan qaba wuxuu arkaa wax aan la arki karin, wuxuu dareemaa wax aan la fahmi karin, wuxuuna gaaraa wax aan macquul ahayn. xigmadda 31aad maalin kasta ku bilow fikir wanaagsan iyo qalbi mahadnaqa. xigmadda 32aad waxbarashadu waxay bixisaa hal abuur. hal abuurku waa fikir la hormariyey, fikirkuna waa aqoon, aqoontuna waxay kaa dhigaysaa mid sareeya. xigmadda 33aad hankaaga wuxuu ku sidkan yahay wax aad inta badan ku fikirto, kaas oo noqda mid niyadaada dega oo muddo yar kadib isku bedela hadal iyo ficil wada socda. xigmadda 34aad habfikirku waa hagaha qofka, bedel habfikirkaaga si uu habdhaqankaaga isku bedelo. xigmadda 35aad bedel habka aad u fikirayso iyo waxa aad ku fikirayso si aragtidaada nololeed isku bedesho, ficilada aad samaysan ay u noqdaan kuwa wanaagsan oo midhagal fiican leh. xigmadda 36aad waxqabadkaaga maanta waa ka aad beri taariikh ahaan meel ku mari karto haddii aad sii noolaato ama aad dhaxal ahaan ugu tegi karto. xigmadda 37aad naceebka dadka waxaa kaaga lumaya waqti badan un. xigmadda 38aad nolosha iyo waqtiga waa labada bare ee dunida ugu wanaagsan. noloshu waxay ina bartaa adeega wanaagsan ee waqtiga, waqtigana wuxuu ina baraa qiimaha ay leedahay nolosha. xigmadda 39aad haddii aad maqneed xilliga aan halgamayay ha filan inaad timaadid xilliga aan dabaaldegayo. xigmadda 40aad tagtada wax ka baro, u diyaar garow mustaqbalka, waqtiga la joogana wax qabso. xigmadda 41aad raggu wuxuu u seexdaa 8 saacadood, dumarkan 7 saacadood, balse qofka doqonka ah weliba garashada maangaabka lihi waxa uu seexdaa 8 saacadood iyo wax ka badan. xigmadda 42aad waqtiga ha isaga lumin garaacista gidaar adigoo ka filaya inuu isku bedelo albaab. xigmadda 43aad ilaa aad naftaada qiimaysid ma qiimayn doontid waqtigaaga, ilaa aad waqtigaaga qiimaysidna waxba kuma samayn doontid. xigmadda 44aad marka aad qof cafinayso waxba kama bedeli doontid tagtada, laakiinse huwal waxaad wax ka bedelaysaa mustaqbalka. xigmadda 45aad had iyo jeer waxa ay dhahaan waqtiga ayaa wax bedela, laakiinse dhab ahaantii adiga ayaa ay tahay inaad bedesho. xigmadda 46aad adiga aan ugu horayntii yoolkaaga si cad aan u qeexi karin oo wax aan suurtagal ahayn inaad qorshe diiradda saartid si aad u fulisid. tani waa sababta dejisashada hadafyada ugu yihiin cows jilaal maaraynta waqtiga. xigmadda 47aad dadku saacaduhu maalintii waxay u kala adeegsadaan si kala gedisan, balse sida aad waqtigaaga u adeegsatid waxay ka tarjumaysaa tayadaada. xigmadda 48aad qofna kuma siinayo madax banaani, qofna kuma siinayo sinaan iyo wax kala toona. haddii ay ragnimo kugu jirto adiga ayaa qaadanaya. xigmadda 49aad libinta ama guusha koox baa kugu nacaysa, hungoogu iyo guuldarada qaar ayaa kugu nacaya ee markasta ismoogeysiyi. xigmadda 50aad talaabada ee guusha waa inaad diidaa inaad isku dhiibto duruufaha kugu xeeran. xigmadda 51aad sida jidhkaaga oo kale ee maskaxda u daashaa ee kunisi orahyada xigmadda leh. xigmadda 52aad kuuma suurtagal aha inaad ka cabsatid guuldarada, waayo waa jidka keliya ee kugu ridaya guusha. xigmadda 53aad ha ku xadidin maalgashiga dhaqaale adduun, ku maalgeli naftaada wax cun kadib waxaad abaalmarin u heli doontaa hodantinimo. xigmadda 54aad go'aanso waxaad diyaar ku tahay inaad ku bedelato si aad u hesho aasaas waxyaabaha aad mudnaanta siinayso, kadib u dhaqaaq sidii aad ugu shaqayn lahayd. xigmadda 55aad weligaa hoos ha u dhigin madaxaaga, mar walba sare u qaad, adduunka indhaha u saar. xigmadda 56aad markuu wax walba ay u muuqdaan inay adiga kaa soo horjeedaan xasuuso in diyaaradda u kacdo iyadoo dabeesha ka soo horjeedo, ma ahan iyadoo dabeeshu la jirto. xigmadda 57aad ka bilaab halka aad joogto, isticmaal waxa aad haysato, samee waxa aad awoodo. xigmadda 58aad waxaa jirta hal wad oo keliya oo lagu fogaado cambaaraynta, waa waxba ha samayn, waxba ha dhihin, waxna ha noqon. xigmadda 59aad wax kasta oo aad samayn karto ama aad ku riyoon karto bilow, iyada indhala'aantu waxay leedahay hodantinimo, awood iyo indhasircaad. xigmadda 60aad micnaha ma samaynayso meesha aad ka timid, arinku micnaha samaynaya waa halka aad u socoto. xigmadda 61aad waxa aan rumaysanahay geesinimada keliya oo qofka u baahan yahay waa geesinimada lagu daba socdo riyooyinka adiga kuu gaarka ah. xigmadda 62aad haddii aanad dhibaatooyinkaaga kusoo xalinin tagtadaada ilaa timaadadaada ayuu ku daba socon. xigmadda 63aad qofna weligiisa buurta kuma fuulo eegmo keliya. xigmadda 64aad marnaba ma fashilmi doono marka aynu isku dayayno inaan samayno waajibkeena, mar walba waa aynu fashilmaynaa marka aynu dayacno inaan waajibkeena gudano. xigmadda 65aad badi waxyaabaha muhiimka ah ee laga qabtay adduunkan waxaa qabtay dad kuwaasoo aan joojin iskudayga marka aan muuqan wax rajo ah. xigmadda 66aad haddii aanad diyaar u ahayn inaad halis u gasho wax aan caadiga ahayn waxa aad joogi doontaa halkii iska caadiga ahayd. xigmadda 67aad suurtagal ma ahna waa erey laga helo qaamuuska doqomada. xigmadda 68aad haddii aad hayso hal tufaax aniguna aan haysto hal tufaax misna aan isweydaarsano tufaaxyadaas, weli mid kasta aniga naga mid ah wuxuu haystaa hal tufaax, balse haddii aad hayso fikrad aniguna aan hayo fikrad misna aan isweydaarsano fikradahaas, mid kasta inagu naga mid ah wuxuu haystaa laba fikradood. xigmadda 69aad mararka qaarkood hirarka isbedelada dhexdooda ayaynu ku heli karnaa dhinaca aynu u socno oo saxda ah. xigmadda 70aad samee wax ka badan wax alla wixii aad ka baqaysid, sidaas waxaa kaaga hari doonta baqdinta. xigmadda 71aad aniga had walba waxaan saadaaliyaa wanaagga, ma arkin weligay faa'iido iga timaada waxaan ka ahayn saadaasha wanaagsan. xigmadda 72aad wax kasta aad samaysid waxaad u baahan tahay
geesinimo si kasta ay tahay wadada aad maraysid waxaa jiri doona qof kuu sheegay inaad wadadii seegtay waxaad la kulmi doontaa shidooyin waaweyn taasoo ku gaarsiin doonto inaadba moodid dadka ku dhaliilaya inay gar leeyihiin inaad samaysatid yool aad hiigsanaysid iyo waddo aad ku gaaraysid yoolkaas taasi waxay u baahan tahay geesinimo aan ka liidan tan ciidanka ku sugan goobta dagaalka xigmadda 73aad waa inaad u dhabaysaa hadafkaaga inuu ahaada mid ogol hirgelin haddii aad taasi dhab u rumaysid wuxuu caqligaaga raadinayaa dhaba iyo qalab aad ku xaqiijisid waxaa dhab ah inuu jiro xal wadada u xaaraya arrintaas si ay u dhabowdo xigmadda 74aad ma noqon karaysid guulaysta dhab ah adigoona wajahna mashaakilaadkaaga dhabta ah ee mudan in la daneeyo xigmadda 75aad xitaa qaladka yar waxaa suurtagal ah inuu ahaado halka shay ay waajibka tahay in lagu xaqiijiyo guul weyn dartiisa xigmadda 76aad waxaan wax ku ammaanaa cod dheer waxaan wax ku canaantaa cod jilicsan xigmadda 77aad xaqiiqadaha dhabta u sugan waxaa ka mid ah inaad dhaqsi u guulaysan kartid marka aad ka caawinaysid dadka kale guusha inay gaaraan xigmadda 78aad waa inaad u guulaystaa maskax ahaan ka hor inta aad ku guulaysan noloshaada xigmadda 79aad dadaalka israacraaca xitaa haddii ay wehelinin wax caqli ama awood ah waa fursad awoodaheena qarsoon xigmadda 80aad weligaa ha ka baqin inaad wadada ku socotid adigoon wehel haysan kala garo wadooyinka tan adiga aad ka leedahay kuna sii soco wax kastoo dhacaba hana isdareensiinin inaad u baahan tahay raacida raadadka dadka kale xigmadda 81aad aqoonta aan lahayn fulintu waxay ka liidataa jaahilnimada xigmadda 82aad falaarta markay asii weydo goolka aad u rabtay ha ku fakirin wax uu yahay qaladka aad gashay ee soo siiyo falaarta labaad kadib ku fakar waa maxay wax ay waajibka tahay inaan sameeyo si aan u asiibo goolka xigmadda 83aad qiyaasaadka ugu habboon ee ku guulaysiga nolosha waa inaad taqaanid tirada dadka aad farxadda ku abuurtay xigmadda 84aad had walba ku horumari caada ahaan inaad ka mahadnaqdid wixii laguu sameeyo sidoo kale aad caada ka dhigataa wax walba laguu sameeyo inaad ka mahadnaqdid ogow tilaabo walba oo aad hore u qaadaysid waa tilaabo aad ka xaqiijinaysid wax weyn oo ku habboon xaaladda aad hadda ku sugan tahay xigmadda 85aad muhiimad aan nolosha ka leenahay ma ahan inaan ka hormarnaa dadka kale ee waa inaan nafsadeena kobcinaa xigmadda 86aad waxaa dhici karta inaan aqooni waayo furaha guusha laakiinse waxaan ogahay furaha fashilka inuu yahay isku dayga raargelinta qof kasta xigmadda 87aad in la sugo natiijo iyadan hool adag la qabanin waxay la mid tahay in la sugo dalag gurasho iyadana waxba la beerin xigmadda 88aad waa ay iska adag tahay inay dadka guulaystaan mar haddii ay ku raaxaysanaynin shaqadooda xigmadda 89aad sirta ganacsiga guulaystay waa inaad taqaanad wax uusan garanaynin qofka kale xigmadda 90aad haddii aadan awoodin inaad samaysid waxyaabaha waaweyn samee waxyaabaha yaryar adigoo u maraya wadooyin waaweyn xigmadda 91aad caqabadu ma ahan maaraynta waqtiga balse waa maaraynta nafaheena furuhu ma ahan kala horumarinta jadwalka balse waa jadwal u samaynta hormooyinkaaga xigmadda 92aad dadku badiya waxa ay ka cabdaan waqti la'aan iyadoo oo dhibta runta ah haysata ay tahay jiha la'aan xigmadda 93aad haddii aanad waqti u helin inaad sida saxda ah u qabatid goorma ayaad waqti u helaysaa inaad mar kale dib u soo wada bilaawdid xigmadda 94aad kuwa waqtigooda sida ugu xun u isticmaala waa kuwa ugu horeeya ee ka cabada gaabnida waqtiga xigmadda 95aad waxaa jira waqti ay aamusnaantu tahay dhawaaq uga codka dheer xigmadda 96aad waqtiga oo aad lumis ayaa ka daran dhimashada waayo dhimashadu wax ay kaa fogeysaa dunida un balse waqti lumintu wax ay kaa fogeysaa eebbe xigmadda 97aad siismada ugu weyn ee aad ruux siiso waa waqtiga waayo wax aad qofka siisay wax aanad ka soo ceshan karin xigmadda 98aad waqti intaa ka badan ha kulminin inaad falanqaysid kana doodid wax ay tahay inuu noqdo qofka wanaagsan noqo adiga qof wanaagsan xigmadda 99aad waqtigaaga wuu xadidan yahay ee ha kulminin waqtigaaga nooleynta qofka kale noloshiisa xigmadda 100aad badankeennu waxaynu waqti badan ku luminaa wax degdeg ah haddana waqti ma siino wax muhiimka ah xigmadda 101aad dadka qaar ayaa ku dareema gabow 18 jirka qaarkoodna dhallinyarnimo ayay ku dareemaan 90 jirka waqtigu waa fahan uu aadanuhu abuurto xigmadda 102aad weligeed ma jiraayo waqti ku filan in wax kasta lagu qabto balse waxaa jira waqti ku filan in lagu qabto waxyaabaha u mudan xigmadda 103aad ha oo dhan waqti ugu filan ma haysto waayo dhammaan dadka dunidana wax ku soo kordhiyey maalintooda waxa ay ahayd 24 saac ee kama ay badneen xigmadda 104aad dhibaatadu waxa ay tahay waa inaad u haysataa inaad waqti haysatid xigmadda 105aad lacag waa aan heli karaa ama waan waayi karaa laakiin waqti waa un waayi karaa un sidaa darteed waa igu waajib inaan si taxadar leh u isticmaalo waqtiga xigmadda 106aad marka dadka qaar ay ku jiraan cadaadis waa ay necab yihiin in ay fikiraan waana waqtiga ay ugu baahi badan yihiin in ay fakaraan xigmadda 107aad micna ma lahan inta aad mashquulsan tahay waa inaad waqti aad dadka kala dareensiiso inay yihiin muhiim aad siisaa xigmadda 108aad dadka badi wax ay waqti iyo tabar badan ku bixiyaan ku wareegista dhibaato halka ay isku dayi lahaayeen in ay xaliyaan xigmadda 109aad ma ahan inaan anigu ahay mid aqli badan keliya waa inaan ku nagaaday dhibaatada waqti dheer xigmadda 110aad waxa aynu ugu baahi badannahay waa waqtiga waxa aynu ugu adeegsi xunnahayna waa isla waqtiga xigmadda 111aad ha ku dhegnaan xasuusahaaga ha wanaagsanaadaan ama ha xumaadaan ee waayo kulligood waa wax tegey xigmadda 112
tobanaad waqtigaaga ha ku lumin sharaxaad dheeri ah. Dadku waxay dhageystaan kaliya wax ay rabaan inay maqlaan. Xikmadda 113aad dadka qaar waxay kula sheekaystaan waqtigooda firaaqada ah, dadka qaarna waqtigooda ay ku firaaqeeyaan si ay kula sheekaystaan. Xikmadda 114aad aqoonyahanka wuxuu aqoonyahan yahay markuu rabbigiisa yaqaano, aakhirana yaqaano, adduunkan isbedelka samayn karo. Xikmadda 115aad inaad noqotid qof hami leh, han leh, hiigsi leh oo hiraal u muuqdaan waa laga maarmaan. Xikmadda 116aad dad baa dibadda ka qurux badan, guriga marka ay soo galaanna bahal ah. Qofka aad nolosha isku darsataan iyo carruurtaad dhashay in aad ku xumaato, dibaddana nin fiican oo lagu yaqaano hebel lagu yiraahdo aad noqotid wax fiican ma ahan. Xikmadda 117aad aqoonyahanku hadduu noqdo qof la iibsan karo, sandanadahu iibsan karto, dowladuhu laaluushi karaan, kaasi aqoonyahan ma ahan. Xikmadda 118aad qur'aanka haddii aad akhrido qof rabbigii uu waramaya ayaa tahay, bal qiyaas rabbigaa oo kula hadlaya oo kuu waramaya. Xikmadda 119aad meesha qiimaha leh ee u baahan inaan u shaqaysano waa aakhiro. Xikmadda 120aad haddaad rabto dadka in aqligooda ku aqbalo waxaa ka horeeya qalbigooda inaad furato. Qofkaad qalbigiisa furan kari weydane caqligiisa ma furan karaysid. qalbiga waxaa lagu furtaa jacayl, naxariis iyo hadal wanaagsan. Xikmadda 121aad waxaa laga yaabaa inaad saacado badan ku bixiso iskuulka inta aad isleedahay yaad saaqidin ee waxbaro oo ka waran maalinta weyn haddaad saaqido maalinta aan saaqidnimo ka weyn jirin. Xikmadda 122aad dadka kuwa ugu hantida badan ayaa ah kuwa ugu hurdada yar. Xikmadda 123aad dhiirigelintu waa sida quud cunto maskaxda la siinaayo, kagama dhargaysad hal fadhi, waa in aad ku soo naqnaqadka badisaa. Xikmadda 124aad qofka kaliya ay tahay inaad ka wanaagsanaatid waa qofka aad shalay ahayd. Xikmadda 125aad haddii aanad duuli karin orod, haddii aanad ordi karin lugee, haddii aanad lugeyn karin garguuro, balse si kasta oo aad samaysid ha joojin hor u socodka. Xikmadda 126aad wax kasta oo aad qabataa farqi ayay keenaan, marka waa inaad doorataa nooca farqi oo aad rabtid inaad samaysid. Xikmadda 127aad matid sabool haddii aad tahay bilaa lacag, wax aad sabool tahay haddii aad tahay bilaa riyo. Xikmadda 128aad uma baqo qofka fikira xitaa hadduu uu lumo, waayo xaqa dib ayuu ugu soo noqon, balse waxaan u baqaa qofka aan fikirin xitaa hadduu uu dhabaa xaqa ku dhaco, waayo wuxuu ahaan doonaa sida bal dabayluhu wataan. Xikmadda 129aad haddii uu mugdi jirin weligayna maynaan arkeen xidigaha. Xikmadda 130aad ku hay indhahaaga xidigaha, lugahaagana dhulka. Xikmadda 131aad qofna kuma dareensiin karo inaad tahay qof liita adiga oo aan u ogolaanin. Xikmadda 132aad naftaada oo aad ahaataa waxa ay kaa dhigaysaa inaad dunidan ku soo kordhisay cid aan hore ugu noolayn. Xikmadda 133aad ha ka ogolaan waxyaabaha aad samayn karin in ay ka hor istaagaan qabashada waxyaabaha aad samayn kartid. Xikmadda 134aad reeraynta ugu weyn waa samaynta wax dadka kale ku dhahan ma samayn kartid. Xikmadda 135aad macna ma lahan inta uu qalbigaaga murugaysan yahay haddii aanad joojin rumaynta riyada aad rabto inay run noqoto. Xikmadda 136aad qaar badan oo guuldareystay waa kuwa aan ogsooneyn sida ay ugu dhawaayeen guusha marka ay faraha ka qaadeen. Xikmadda 137aad haddii aad rabtid inaad u iftintid sida cadceedda oo kale lahaw kuleelkeeda oo kale. Xikmadda 138aad mustaqbalka magacyo badan ayuu leeyahay, kuwa daciifka wax ay u yaqaanaan lama gaadhaan, kuwa cabsada waxay u yaqaanaan lama yaqaan, kuwa dhiiranna waxa uu yahay xaqiiqada durugsan. Xikmadda 139aad duruuf walboo ku soo wajahda ma ahan dhammaadka, noloshu waxay ku tusinaysaa inaad tahay quuste ama isma dhiibe. Xikmadda 140aad marna ha sugin inay ku yimaadaan waxaad jeceshahay, maxaa yeelay inaad soo xulato ayay u baahan yihiin xitaa haddii aad nasiib u yeelatay. Xikmadda 141aad qofka kaliya sidhab kuu dhiirigelin kara waa adiga. Xikmadda 142aad haddii aad sidhab wax u rabto waxaad heli doontaa habkii aad ku hanan lahayd, haddii aanad sidhab wax u rabinne waxaad heli doontaa cudurdaar. Xikmadda 143aad waxa kaliya ee aad mararka qaar gacanta ku haysaa waa aragtida, adigu xaaladahaaga gacanta kuma haysid, laakiin waxaad dooran kartaa sida aad xaaladaas u arkaysid. Xikmadda 144aad waa in aynu nafeena ka xoreynaa rajada ah in ay badu degi doonto, waa in aynu barnaa sida aan badda ugu socdaan lahayn dabayshu kacsan. Xikmadda 145aad marka aad guusha ugu baahato sida aad neefta ugu baahan tahay oo kale markaas waad guulaysan doontaa. Xikmadda 146aad kuma lihi waa ay fududaan doontaa, waxa aan ku leeyahay waa ay u qalmi doontaa dhib kasta oo loo maro. Xikmadda 147aad qorshe wanaagsan oo hadda la qabta ayaa ka fiican qorshe dhammaystiran oo toddobaadka soo socda la qorsheysto. Xikmadda 148aad talaabada ugu horeysa waa in ay gebi ahaanba ku caddahay waxa aad rabto. Xikmadda 149aad sidee ayay noqon lahayd noloshu haddii aanan haysan lahayn dhiirani aynu waxay doonaan ha noqdaane isugu dayno. Xikmadda 150aad wax dhib ah kaa soo gaari maayo inaad mustaqbalka ka filato wanaag, had iyo goor oohintaada dib baad u dhigan kartaa. Xikmadda 151aad cudurdaaradu waa musbaaro loo isticmaalo in lagu dhiso aqalka guuldarada. Xikmadda 152aad reer galbeedku ma ahan dad aqli badan, anaguna ma nihi doqomo, keliya wax ay dhiirigeliyaan kooda fashilma ilaa iyo intuu ka guulaysanayo, anaguna wax ayna la dagaalanaa keena guulaystay ilaa iyo inta uu ka fashilmaayo. Xikmadda 153aad cidna ma burburin karto xidiidda birta, balse daxalaysigeedu ayaa burburin kara. Sidaa oo kale
kale cidna ruux ma burburin karto balse khiyaaliga maskaxdiisa ayaa awooda in uu burburiyo. Xikmadda 154aad kalsoonida iyo howlkarnimadu waa daawooyinka ugu wanaagsan ee lagu dabiibi karo xanuunka loo yaqaano guuldarada. Xikmadda 155aad ha akhrin sheekooyinka guusha ka sheekeeya, hal fariin un baad ka helaysaa. Akhrisa sheekooyinka jabka ka sheekeeya, aragtiyo lagu guulaysto ayaad helaysaa. Xikmadda 156aad guushu waa wadarta dadaalada maalinlaha ah ee si joogto ah loo sameeyo. Xikmadda 157aad ninka guul soo hooyi doono wuxuu ka faa'iidaystaa qaladaadkiisa hore wuxuuna isku dayaa waddo tii hore ka duwan qaado. Xikmadda 158aad boqolkiiba 99 guuldarooyinka waxa ay ka yimaadaan dadka leh caadada ah in wax walba cudurdaar loo sameeyo. Xikmadda 159aad aynu maalinteena hurno si ay carruurteena u helaan bari ka wanaagsan. Xikmadda 160aad waxa carruurtaada ka dhigi kara inay guulaystaan ma ahan waxa aad u qabatay iyaga laakiin waxa aad bartay iyaga inay qabsadaan. Xikmadda 161aad shakigeenu waa qaa'in wuxuu naga dhigaa kuwa ku guuldarasta inay gaaraan khayrka aan heli lahayn haddii aanay jiri lahayn baqdinta aan ka qabno isku dayga. Xikmadda 162aad markasta dadka waxay eedda saaraan duruufta aniguse ma aaminsani duruufaha kuwa ku guulaystay adduunyadan waa dad soo subaxii oo raadiya duruuf imaan karta haddii ay waayaan waa ay abuuraan. Xikmadda 163aad markastoo aad raadaysaa difaac waa ay yartahay waxa aad ka soo heshid markastoo aad raadaysaa fursadna waa ay kordhaan rajooyinka aad ka leedahay difaaca aad raadinaysid. Xikmadda 164aad ka abuur guusha fashilka gudihiisa rajo xumada iyo fashilka buuxay yihiin rajooyinka aad ku gaari lahayd guusha. Xikmadda 165aad caqligaaga ku dhex sawir qaabka aad jeceshahay inuu had walba ahaado mustaqbalkaaga si aayar ah baad u abaari doontaa dhankeeda ee haddii aadan jabinin nafsadaada iyada ayaa kuu jabinayso jaranjarooyinka guusha meesha ugu sareysa wax xiriiri ah kama jiraan. Xikmadda 166aad indhahaaga ha ku doogsadaan maalinta aad dareentay meesha ugu sareysa ee qanacsanaanta maalintaas lama mid aha maalinta aad simicna la'aan ah aad isugu mihnaabi jirtay wadooyinka waa maalinta ay wax walba ku horyaaleen si aad u samaysid waadna samaysay dhabtii. Xikmadda 167aad xataa haddii aad socotid wadada saxda ah kama badbaadaysid inuu qof kaaga istaago ciribta marka aad sikadiisa u istaagtid dhaqaaq la'aan. Xikmadda 168aad waxaan ogolaan karaa inaan fashilmo laakiinse ma ogolaan karo inaan ka fariisto isku dayga. Xikmadda 169aad sida caadada ah ma ahan farqiga u dhexeeya qofka guulaystay iyo midka guuldareystay wax xiriir ah lama lahan awoodda iyo fakarka ee waageesamada loo bareero khatarta iyo sida loo diyaarsado afkaar waxgal ah iyo tilaabaqaad. Xikmadda 170aad waxyaabaha waaweyn kuma dhashaan qiyaas iyo ixtimaalaad ee waxay ku dhashaan tixane waxyaabo yaryar ee la isku geeyey. Xikmadda 171aad oogada ugu sareysa ee sharafta ma ahan kaliya fashilka oo meesha laga saaro ee waa in la istaago kadib marka la kufo. Xikmadda 172aad tayadu waxay muhiim ka dhigaysaa inaad u gudubtid qaabkeeda ugu wanaagsan kolka uusan ku kormeeraynin axad. Xikmadda 173aad riyada waxay ugu muuqanaysaa waali qofka aan haysan riyo wax uu maskaxda ka qorsheysanayo. Xikmadda 174aad guusha nolosha waxaa tiir u ah soo jeed u diyaargarowga fursadaha iyo ka faa'iidaysigeeda marka ay timaado. Xikmadda 175aad orax ahaan kuguma filna inaad tidhaahdid wixii karaankayga ah waan sameeyey ee waxaa waajib kugu ah inaad ku guulaysatid samaynta waxyaabaha daruuriga ah. Xikmadda 176aad wax aad hadda samaynaysid haddii aanay kuu sii dhaweynaynin yoolka aad hiigsanaysid taas beddelkeeda waa ay kaasii fogeysaa. Xikmadda 177aad inaad guulaysatid haddii aad doonaysid samey arrimahan soo socdo garo waxa aad samaynaysid jeclo waxa aad samaynaysid rumee waxa aad samayn doontid. Xikmadda 178aad qofku waxa uu awoodaa inuu bedelo noloshiisa isaga oo maraya waddada fakarkiisa. Xikmadda 179aad haddii aadan dareemin weligaa cabsi ama wejigabax ama dhaawac adiga weligaa khatar uma aadan bareerin. Xikmadda 180aad dadku waa uu mana raadiya hadaf uu tiigsanayo waxay noloshiisa yeelanaysaa micno marka kaliya uu dadaalo oo uu adkaysto si uu u gaaro hadafkiisa awgeed. Xikmadda 181aad mashaakilada iyo caqabadaha aan ka tilaabsanayno maanta waa lacagta ay waajibka tahay inaan bixino si aan u hanano guulaha berito. Xikmadda 182aad ma ahan geesiyaashu kuwa sameeya taariikhda laakiinse taariikhda ayaa ka dhigto geesiyo. Xikmadda 183aad ahaanshaha iyo barashada naftaada oo dhab ah ayaa abuurayso qabashada shaqo aad jeceshahay iyo kowac nololeed oo xaqiiqi ah. Xikmadda 184aad weligaa aad ha ugu fikirin wax aad soo dhaaftay waxaad weyi doontaa farxaddaada. Xikmadda 185aad haddii wax yar oo fudud lagu sameeyo ka mahadceli adiga oo qofka wanaagga kuu sameeyey tusaaya inaad ku faraxsan tahay wanaagga uu kuu sameeyey. Xikmadda 186aad maanta haddaadan haysan gaari dad baa lugla haddaadan haysan guri qurxoon dad baa guri la mar walba qofka kaa hooseeya fiiri maxaa yeelay wuxuu ku xasuusin doonaa wax aad haysato. Xikmadda 187aad marnaba ha iska dhagatirin qofka ku jecel ku daryeela kuu baahan sababtoo ah maalin ayaad intaad baraarugto garan doontaa in aad dayaxa weyday kolka aad xidigaha tirinaysay. Xikmadda 188aad dhib kasta ku soo mara wuxuu kaa dhigaa qof jaba ama qof sii jira oo aad adag. Xikmadda 189aad weligaa si weyn ha ugu fikirin wax soo socda waxaad dareemi kartaa cabsi mustaqbalka ah ka faa'iidayso xilliga aad ku sugan tahay adigoo dhoola cadaynaya.
xigmadda 190aad qofka caqliga leh xarabkiisa qalbigiisa wuu ka dambeeyaa marka uu doonayo inuu hadlo marka hore wuu fikiraa xigmadda 191aad howl walba waxay ku wanaagsan tahay kartideeda inaad leedahay waa inay kugu jirto jecel aad u qabto inaad ka asal gaadho xigmadda 192aad wax aqrintu waxay kugu dhalisaa inaad maankaaga wax ka soo saarto xigmadda 193aad waxay dadku ku fikiraan adigu ma ahan muhiimadaada xigmadda 194aad daciiftinimadu waxay lumisaa kalsoonida qofka waana horseedka guuldarada xigmadda 195aad uma baahnid qof inuu ku dhammaystiro waxaad u baahan tahay oo keliya qof inuu ku aqbalo gebi ahaanba xigmadda 196aad ka hor inta aadan seexan habeen kasta cafi qof kasta oo ku seexo qalbi nadiif ah xigmadda 197aad jooji raadinta sababaha aan ku farxad gelin diiradda saar sababaha aad ku faraxsan tahay xigmadda 198aad aamusnaanta waa jawaabta ugu fiican qof aan qiimeynin ereyadaada xigmadda 199aad noloshu aadanuhu ma dhammaystirmi karto dhibtu waa micnaha nolosha xigmadda ugu dambaysa xigmadda 200aad waad guulaysan kartaa ha cabsan waad kartaa waad baran kartaa isku day haliyey ayaad tahay way fududahay hormuud ayaad tahay waad ka soo bixi kartaa waad samayn kartaa hore u soco karti ayaad leedahay way dhib yar tahay adkayso ugu dambayn daawadaha sharafta leh halkan haddii aad nala soo gaartay aad u mahadsan tahay haddii aad ka heshay muuqaalkan like sar si uu dad badan u gaaro la wadaag asxaabtaada oo share u dheh intaan muuqaalkan la cinaha ku kulmi doono waxaa idinkaga tegi doonaa nabad iyo horumar